maanta waxaan saxaafadda horta madaxa banaan sharafta leh aan ugu yeeray in aan ka hadlo arrimo dhowr ah sida la socotaan xisbiga kulmiye maalmahan in dhaweyd ma jirin shir jaraa'id oo caam ah oo uu qabto saxaafadda iyadoo uu xisbigu ku mashquulsanaa abaabulka iyo diyaarinta shirkii golaha dhexe xisbigu uu qabanayay haddii la yiraahdo taasi oo muddadii uu ku muddaysnaa ay maaragtay uu ku qabsoomi doono haddii la yiraahdo marka waxaan damacnay marka ay hawshaasi imika ay naga dhamaato inaanu si toos ah aanu ula hadlo kana jawaabno arrimaha xisbigan ku geedaaman bulshadiisu isweydiinayso si la socotaan xisbiga kulmiye waa xisbi daaweyn oo imika ah xisbiga ugu weyn ee ka jira axsaabta jamhuuriyadda Somaliland waxaa kaliya oo ka horeeyay xisbigii burburay udub hogaaminayay muddada 8 sano dalka waxaanu xisbiga kulmiye nasiib u yeeshay inuu muddo 14 sano dalkan taladiisa uu hogaamiyo xisbigani waa xisbi waay araga oo soo maray mucaarado adag iyo muxaafidnimo 14 sano waa xisbi hogaamiyaashiisu ay yihiin oo qaasatan gudoomiyaha saddexaad ee maanta xisbigan hogaaminaya uu ka mid yahay afartii oo kana nool yahay waliba afartii mujaahid korneyl ka talaabay taladii xumeyd ee dictatorkii maxamed siyaad bare ee ummadan ku xasuuqayay maalinta raggii kacay isagoo dhalinyaro ah ayuu ahaa naftiisan u horay dagaalo badan uu galayna ku dhaawacmay ayuu ahaa wuxuu ahaa raggii qaybta ka ahaa nabadeyntii iyo dib u dhiskii jamhuuriyadda Somaliland muddo 7 sano ah wuxuu noqday wasiirka arrimaha gudaha sidaas la mid ah xisbigan labadii madaxweyne ee ka horeeyay waxay ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo 7 sanadood hogaaminayay jabhaddii dib u xireentii dhaqdhaqaaqii SNM oo ahaa nin waay araga waad ogeydeen la jecelo uu dalkan u qabay aawade inuu kaga tagay 80 cod oo kaliya madaxtinimadii laga helay oo kaga tagay oo ku hambaliyay sidaas la mid ah madaxweynihii labaadna waxa xisbigan ka soo baxay mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna ahaa mid ka mid ah halgamayaashii dalkan jamhuuriyadda Somaliland xisbiga soo eegaya waxa uu qaatay mowqif ah in aanu marnaba qayb ka noqon waxa duraya ama yeelaya dhaawac u yeelaya ama dhibic madow wixii qaranka jamhuuriyadda Somaliland wax yeelaya xisbigani waxa uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo madal kasta oo midnimada Somaliland lagu mideynayo wuxuu diyaar u yahay inuu muujiyo in danta kaliya uu leeyahay ay tahay inuu qarankan dhismo iyadoo la eegaya halgankii iyo lixjaaladii qarankan ay u lahaayeen raggii soo hogaaminayay ee ugu dambeeyay imika mujaahidka ugu dambeeyay hogaaminayay mujaahid maxamed kaahin axmed dadka taageerayaasha xisbiga waxa laga yaabaa inay waxyoogaa qaar fahmi waayaan marka xisbiga uu muujiyo ama ka qayb galo midnimo madal lagu muujinayo midnimada qaranka si aad ogtiin waxa madaxweynaha maanta jooga u suurta gashay inuu dhameystiro heshiiskii ama aqoonsigii ay dalka Israa'iil ay ku aqoonsadeen jamhuuriyadda Somaliland isagoo qiray in uu ahaa dadaal ay hore u soo wadeen madaxweynayaashii ka horeeyay dadaalkaasi oo aqalkii yimi markuu isagu talada dalka yimi madaxweynaha safarka uu ku baxay oo ku tagay Tel Aviv waxa ka hor yimi dalal waaweyn ay ka mid yihiin Turkiga ay ka mid yihiin Masar ay ka mid yihiin Qatar oo ay ka mid tahay dawladda taagta daran ee Muqdisho joogta oo intaba warar ay sii daayeen ay ku sheegeen oo aanay laga yaabin in dadkeenu ogeyn intooda badan in aanay dadka reer Somaliland ogoleyn اعترافka ay jamhuuriyadda Somaliland ka heshay Israa'iil iyo inay safaarad ka furtaan Qudus taa oo ay ku sababeeyeen ragga qaar iyo dawladaha qaar sida Turkiga in xisbiyada mucaaradku aanay arinta la qabin saad ogtiin maalinta اعترافka lagu dhawaaqay xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbiga ugu horeeyay ee hambaliyay waxaan rajaynaynaa inaan ka hor hambaliyay xisbiga xaakinkii talada dalka ay sababtuna waxa weeye taan idin sheegay ah lixjeclada iyo wanaagga xisbiga kulmiye oo qarankan u hayo oo isagu dantiisa ka horeysiinayo in guusha ummadani ay u soo dagaalantay naf iyo maal u soo hortay 35 sano u dhabar adeegaysi oo gaadhay in la gaarsiiyo in meydkooda la cashuuro la yiraahdo EVs kuma iman karaan sidii looga bixi lahaa inuu xisbigan taageero wuxuuna ahaa xisbiga ugu horeeyay maalinta taageeray waxaad ogtiin in madaxweynaha ka horeeyay Muuse Biixi Cabdi xisbiga ka soo baxay uu yiri waxaan ku imi cagacadaan markaan ogaaday
marka sida iyadoo taa laga duulayo waxa mowqifka xisbiga kulmiye uu mar walba yahay in madalaha lagu muujinayo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aan goobjoog ka ahno waliba aan hormuud ka ahno xukuumadda maanta jirta waxaanu isku haysanaa waa talada dalka waa kursigana waxaanu kaga helaynaa wanaag iyo inaan anagu uga lex jecel badanahay sida muuqataba dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland anagu manhin arki jiray doon ambiyada ayaa markay ilaahay u soo dhiibay risaalada ay dadku inta badan oran jireen dadka kaafiriinta ama diidan inay raacaan awooyaashin iyo aabiyaashin waxaynu ka soo gaadhnay ma xisbiga kulmiye xisbi waayaraga xisbi oranaya buur baa la fuuli jiray iyo dawlad baa la dagaalami jiray oo mucaarad taa u yaqaan ma xisbigan wuxuu mucaarad u yaqaanay noqoto mucaarad dhisma oo dhisaysa constructive maaragtay oo dhisaysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi waa qodobka waana sababta xisbigan mar walba aad uga aragtaan inuu joogo goobaha qarankan midnimadiisa lagu muujinayo sida xasuusataan madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo oo ay aad u kala fogaadeen daaryaala kayn waxa aad la yaab u noqotay maalmaha kamid ah oo la qarxiyay 2009 madaxtooyada inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee gala madaxtooyada ee muujiya inaanay ahayn maalin la kala bayro ay tahay maalin qaranka la difaacayo sidaas la mid ah ayaanu xisbigan markasta mowqifkiisu yahay maalinta cadawgu inagu soo duulo ama uu inaga faafiyo beeno aan jirin oo uu kaga been abuuranayo shacabka iyo xisbiyada mucaaradka inaanu raacno waa beenti oo qarankani waa midaysay taasi waa taa xisbiga kulmiye mowqifkiisa cad oo aan gagabasho lahayn waxa weeye ka qaybgalka munaasabad kasta oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aqoonsiga waxtar u ah kana qayb qaadanaysa wacyigelinta bulshadiisa mid kale oo aan doonayo inaan kala waxa weeye xisbigani waxa uu leeyahay jaranjaro waxa uu leeyahay hoggaan waxa weeye waxa jira mas'uuliyiin loo doortay oo sharci uu siinay sida ogeydeen dacwadii ugu dambeysay ee guddiga dacwadu ka garnaqeen waxa xisbigani uu helay hoggaankiisu taageeradii guddida iyo sharcinimadiisii oo awalba uu haystay ay xaqiijiyeen xisbigani afkiisa waxa kaliya ku hadli karaya waa hoggaanka xisbiga iyo cidda uu eegmado iyo cidda uu isagu markaa arrimaha joogeedna cid kasta oo xisbigan ka been abuurata ama beenka ku sheegta meelaha ama guryaha qaar waxa weeye cid dambi ka galaysa xisbiga waxayna ku hadlaan waa afkooda oo kaliya af ay xisbigan ku matalaan kuma hadlaan taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leenahay maanta waxa la marayaa marxalad adag dalkana noloshiisa ay adag tahay waxaad arki doontaan ama aad aragteen in badan oo inaga mid ah oo oranaysa waxaan ka tagaynaa xisbiga kulmiye maaha markii ugu horeysay xisbiyada mucaaradka ay ka tagaan dad ay yiraahdaan xisbi xaakim baanu galay waayo xisbiga marka hore uu guusha dhalinayo waxa guushu way aabiyaal badan tahay guuldaraduna aabi kaliya baa dad baa jiraan adkeysan karin inay bacadka joogaan dad baa jira marka horeba dad technocrat ah oo xisbiyada ka tirsanayn sida aad arkayseen qaar kamid ah marka dadka oo idilna wax dhibaato kuma hayaan xisbigani waxa ka farcamay xisbiyada dalka jira hoggaanka xisbiga ka say u dhan yahay intiisa badani 80% in ka badan waa kulmiye hoggaanka xisbiga wadanina waa kadali waa kulmiye kuwaasi waa xameeyeen marka waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaad ogaataan xisbigiinu inuu isla xisbigii yahay guusha dhaliyay in ay joogaan ragii dalkan lix jeclada ka lahaa ee dhiigooda soo horay ee naftooda ka horeysiinaya mar walba arrimaha qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin sheegaynaa in xisbigani aan waxba iska bedelin mucaaradnimadiisii mar walba uu issueyada yimaadeen lagu kala duwan yahay iyo dheelada xukuumadda waxaanu qaar heegan u ah oo ummadda u soo gudbin doona wax qatar la'aanta ama daciifnimada xukuumadda maanta jirta mar aanu ka gambarayna taa inaan sheegnaana ma jirto maanta waan aaminsannahay inaan ahayn xukuumad u dhiganta teeni ugu dambeysay tii ka horeysay midna laakiin waxaan leenahay arrimaha qaar qaranku gacmaha ayuu iska qabsanaya waanu ku taageeraynaa arrimaha ictiraafka iyo difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumad kasta oo timaada tan joogta iyo tan ka dambeysaba. Wassalaamu calaykum.